Assalaamu calaykum daawada ku soo dhawow halkani waa raadiyaha TV-ga caalamiga Hami xaruntiisa magaalada Beledweyne maanta waxaan jeclaystay inaan idinla wadaago qormo aad u cajiib ah akhristaha iyo daawaduhuba ay ka wada xumaanayaan maqaalkani ama qoraalkani xuquuqdiisa waxa iska leh laanta afka Soomaaliga ee BBC-da inkastoo aanan fasax u haysan haddana waan ka raali gelinayaa maqaalkani ayaa waxa uu ku qotomaa dhanka ciyaaraha ama haddaan si kale u yira dhacdo saameysay ciyaaryahan hansare lahaa waa kuma ciyaaryahan Bruno Fernandes de Souza amaba kumuu ahaa ciyaaryahankii caanka ahaa ee loo xiray dilka atariisho uu horay u jeclaa aynu gudagalno qormadeena fursad kasta waxay ahayd muhiim lagamana soo kaban karin in ay qasaarto kooxda waxay ku guulgaareen kooxda ay ku xifaaltamaan magaalada Rio de Janeiro ee dhulweynaha Brazil waa labada kooxood ee inta badan Brazil loo xiiseeyo Flamengo ayaa 2-0 uga badisay kulan ka tirsanaa horyaalka dalka Brazil oo ay ciyaareen galabtii ay taariikhdu ku beegnayd 27 May sanadii 2010 laad xor ah ayaa loo dhigay meel aanan ka fogeyn xerada xeendaabka ama 18 xilli ay ciyaarta maraysay daqiiqadii 9aad ee gabagabada kulanka goolhayihii kooxda Flamengo Bruno Fernandes de Souza ayaa qaatay fursadaasi waa uuna dhaliyay gool aad u qurux badan waxa uu ahaa goolkii afraad ee uu dhaliyo intii uu xirfadiisa ku guda jiray isagoo waliba goolhaya ah rajo aad u fiican ayaa laga qabay in uu meel sare gaarsiin doono xulka qaranka Brazil oo ku caanbaxay inay soo saaraan ciyaartoy xirfadoodu ay cajiib tahay laakiin hal bil kadib xilligaasi waxa isbedelay guud ahaan mustaqbalkiisa oo mugdi u horseeday Bruno waxa loo xiray eedayn ku saabsan in uu amray afduub iyo dil arxandaro ah oo loo geystay haweeney warbaahinta gudaha dalka Brazil ayaa xooga saaray tabinta wararka ku saabsan kabtanka kooxda Flamengo ee eedaynta dilka ah loo haysto halkii ay wararkooda xooga ku saari lahaayeen ciyaarihii koobka adduunka ee sanada 2010 lagu qabanayay dalka Koonfur Afrika gabadha la dilay oo lagu magacaabi jiray Elisa Samudio ayaa ahayd atariisho sidoo kalena dharka xayeysiisa xilliga ay arintani dhicisay Bruno waxa ay dadka reer Brazil qaarkood ku tilmaamayeen mid ka mid ah ciyaartoydii ugu wanaagsanayd ee abid soo mara xitaa waxa jiray warar la isla dhexmarayay oo sheegayay in goolhayahani oo 25 sano jir ahaa uu ku biiri rabo kooxda AC Milan ee cariga Talyaaniga waxaasoo dhan markii dambe waxa ay isku bedeleen riyo uu qofkii hurdayay hurdada uu ka soo toosay Bruno iyo Elisa waxa dhex maray xiriir muddo kooban socday saaxiibo labada dhinac ah oo ka marqaati kacay xiriirkoodu waxa ay sheegeen inay kulmeen 21 bishii May ee sanadii 2009 bishii Agoosto isla sanadkaasi ay ciyaartoygan u sheegtay in ay uur u leedahay Bruno waxa uu goor dambe maxkamadda ka sheegay inuu aad u carooday markii ay Elisa ka diiday inay ilmaha iska soo tuurto xilligaasi waxa uu si rasmi ah ula socday haweeney dhakhtar ah oo lagu magacaabi jiray Ingrid Cavalcante taasi oo isagoo xabsiga ku jiro uu guursaday sanadii 2016 dhanka kale waxa uu lahaa xaas oo xilli hore guursaday una haysay 2 gabdhood 13 bishii Oktoobar ay Elisa dacwad u gudbisay booliiska kiiskooduna waxa uu noqday mid ay warbaahinta si weyn u bumbuuniso Bruno Fernandes de Souza waxa uu ku eedeeyay Elisa in ay been sheegayso ayna marar badan isku dayday in ay dhibaato u horseedo muddo kadib waxa ay dhashay canugii waxayna u bixisay magaca Bruno markii uu dilkeeda dhacay baaritaanadii ay booliiska wadeen ayaa lagu ogaaday inuu goolhayahani ku lug leeyahay falkan canuga yar waxa ay booliisku ka heleen meel lagu qoriyay laakiinse Elisa ilaa iyo hadda fara laguma hayo sanadii 2013 ayaa Bruno Fernandes de Souza lagu xukumay xabsi 22 sanadooda Ricardo oo ah ninkii lagu helay inuu gacantiisa ku fuliyay dilka haweeneydaasi ayaa lagu xukumay 36 sanadood oo xariga bishii July ee sanadii la soo dhaafay ay maxkamaddu
fadhigeedu yahay dalka Brazil ogolaatay in Bruno Fernandes laga khafiifiyo xukunka, waxaana loo ogolaaday in uu mararka qaar gurigiisa seexan karo. haddaba daawade, waxaanan ka damacsannahay qormadan aan kuu soo gudbinay in mar walba hankaaga sare noloshu ay ku xiran tahay, duniduna ay tahay mid labagelina, hadba sida aad adigu doonaysana waxba ugama dhacaan. fadlan haddaad janaalka ku cusub tahay, subscribe saar, sidoo kale la wadaag asxaabtaada. waanu kaga mahadnaqaynaa in aad qormadani halkan la soo gaartay, sidoo kale waqtigaaga qaaliga ah ayaanu kaga mahadcelinaynaa. diyaaryaha maqaalkanna waa anigu Ibrahim Jamunia. mar kalena waan ka raaligelinaynaa in qormadani ay tahay qormo xuquuqdeedu ay leedahay laanta afka Soomaaliga ee BBC-da. waad ku mahadsan tahay daawashada fiidiyogan. tan iyo fiidiyogan mid lacayna waxaan ku leeyahay guuleyso.